aynu ka bilaabno dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota minneapolis haatan wax ka taagan beegso midabka madowga ama ugu hanjab nambarka 911 si kalsooni ay ku dheehan tahay waa halbeeg dadka caddaanka qaarkood markii la joogo bartamaha Ameerika si aad u ogaato midabka madowga bal fiir newska isteediyada ama gobolada breaking overnight and into the early morning the riot kala aynu booqonnay qolalka magacyada kala duwan leh sida niisyada xarumaha waaweyn ee sida filmaanta kuwa lagu sameeyay ee Hollywoodka waxa ay soo bandhigayaan madow waxaday ama film ah madow shaqadiisa aan lagu kalsoonaan karin fariintu waa ka fogow ama ka durub madowgiisu wax ku yeelin 26 May oo ay talaado ku beegneed muuqaal la soo geliyay social media ayaa ahaa nin madow oo ololeeyay deegaanka waxa uu la kulmay naag cadaan sida ay xariganas u xirneen macnaha guud wuxuu ku yiri celi eyga oo ku xarigiisa waxa macquul ah inuu dadku wax yeelayo waxayse sheekada cirka isku shareertay markii ay ku jawaabtay naagta sida tan Please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life. Please tell them whatever you like. There is an African-American man. I'm in Central Park. He is recording me and threatening myself and my dog. naagta ayaa ninka ku soo bodo waxaana leedahay jooji muuqaalka adiga boodaysid ninkana wuxuu leeyahay fadlan wac booliiska naagtuna waxay leedahay waan wacayaa booliiska waxaana u sheegayaa nin madow inuu nafteeda halis ku yahay ninka ayaa wuxuu leeyahay waxa jeceshahay u sheeg iyaga naagti booliiska ayaa wacda waxaana leedahay nin madow ayaa nafteeda iyo nafta eyga halis ku ah una duubayaa fadlan si degdeg ah nooga soo gaaro ciidan noo soo dira dhanka kale dhammaan dadka waddanka wada jooga waa canshuur bixiyaal balse aan u sinayn cadaaladda waxaa macquul ah inaad wararka ka daawatay dukaamo la jabsaday ama guryo la gubay balse muuqaalkan fariintiisu way ka duwan tahay kuwii hore aad hore u daawatay markaynu iska baryeelno xaaladaha muuqda innagoo kaga siman midabka waa kuwan iyaga oo ku bannaanbaxaya magaca nuur oo ah wiilkii Soomaaliga booliiska ahaa oo sida shilka ahayd ku dila gabadhii Australiyaanka gudaha Minneapolis iyaga oo muujinaya inuu nuur yahay nin madow ah hadalkooda tilmaamta leh wuxuu yahay nuur waxa aad ku xukunteen 12 sano isaga oo dilay naag cadaan ah balse ninka madowga ah aan ku daaya dhamaystirka ma maqashay dhiigga ay kacay balse safar gaaban aynu ku aadno Facebooka dadka qaar ayaa soo bandhigaya muuqaaladii bannaanbaxa ama dilkii isniintii dhacay balse marka aynu joogno Soomaalida dhexdeena halkan ayay murugta taallaa waxa muuqaalada murugta leh qosol saaraya dadka qaar ee Soomaalida ah waa kan fariin ka timid Sheekh Axmed Xaaji oo ah walaal Soomaaliyeed insaaniyaddu marka laga hadlayo dadku ma wadaad yar ama wiil yar oo Soomaaliya ku koray oo weligii aan arkin ajnabi ah oo weligii aan arkin nin waddan kale u dhashay oo kaliya cidiisa arkay oo reerkiisa arkay oo aan social ba ahaynba ba intuu halkan ku soo gal wuxuu ku leeyahay dadkan maxaa ka gale adigu haddaad in adeerka nacday adigu haddaad nin kugu Soomaali aan nacday adigu haddaad nin tuulo kale kimid aad nacday oo tuuladaada aad ku dhax kortay sidii jiirhaan ku dhax koray we are not like that annaga adduunkan ku kornay annaga bulsho kala duwan baan ku kornay annaga waxaan ku kornay caalam kala duwan oo iscaawinaya caalam kala duwan oo marna kaarka diinta uu shaqeeyo marna kaarka rayska iyo ay shaqeysan mudabku marna kaarka luqadda uu shaqeeyaan ku nool annaga adigu hadii tuulada aan lagugu imanin oo nin kugu yimaada aad u taqaano koyto marka nin madow oo la dilay maxaa sheekhu ku dhaxgeeyay why anigu in la qaado fara la tuurtuura diyaar kam yani mudaharaad silmi of course I want to be there mudaharaad silmi yes tirakoobka Soomaalida Ameerika waa 150,000 dagaalka Trump iyo nacaybka madowga waxa uu soo mari doonaa oo albaabka ugu horeeya uu yahay dagaalka Soomaalida